بسم الله الرحمن الرحيم كان داون سو مقلبايا دم تي في فرنسا وتكتلانيغا مقاله فرنسا ورك جيرو كشيغ ما تخون سو قادنا بشي تاي 6 بشي افراد 23 ورك جيرو رون كشيغ ما انت waxaan ku soo qaadanayaa madaxweynaha Hirshabelle Ali Gudlaabe Xuseen oo maanta shir gudoominayay shir ka dhacay magaalada Jowhar ay joogeen wasiirada Hirshabelle ayuu uga hadlay horumarka ay maagan yihiin inay ka sameeyaan Hirshabelle asigoo halkaas ka cadeeyay in ay jiraan mashruucyo oo gaarayaan ilaa 6 oo laga sameey doono Hirshabelle oo dhan ha ahaato Jowhar ha ahaato Balcad ha ahaato Buulaburte ha ahaato meel kasta oo ka mid ah carada Hirshabelle ayuu wuxuu sheegay in mashruuc iyo ballaaran laga fuli doono sidoo madaxweyne Ali Gudlaabe Xuseen oo sheegay waxa hadda bilaabanayo sidii loo horumarin lahaa Hirshabelle ha ahaato Hiiraan ha ahaato Shabeellada Dhexe oo markii la isku daro la yiraahdo Hirshabelle mashruucyo gaarayaan ilaa 7 ayaa la meel mari doonaa mashruucyadaasna wuxuu ku cadeeyay shirgudoonkii oo maanta oo ku qabtay magaalada Jowhar ay xaadir ku ahaayeen wasiirada iyadoo wax badan laga sugayay Ali Gudlaabe Xuseen wax qabad inay ka soo muuqato Hirshabelle sida oo madaxweyne Ali meesha ka cadeeyay wuxuu cadeeyay in shaqooyinkoodii iyo howlihii horumarkii laga sameyn lahaa Hirshabelle ay hakiyeen macna khawaarijta laga shaqeey waayay meel kastana ay khawaarijta ay joogtay Jowharna ay ku dhex jirtay go'doon marka maadaama hadda go'doonkii laga saaray waxa bilaabo doono mashruucyadii wadankaas mase maamul goboleedkaas oo ummadiisa u sameey lahaa madaxweyne Ali Gudlaabe Xuseen oo daba socda hadal maalin horaato madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka soo yeeray markay socdaalka ku tageen aadan yabaal hadalkaas oo ahaa in meesha kaliya ee isbaarada ay ka jirto ay tahay Hirshabelle asigoo ku andacooday Xasan Sheekh Maxamuud waxa loo baahan yahay inaan runta isu sheegno isbaaro waxay ka jirtaa Hirshabelle adduunka kale kama jirto waxa soo dhan waa laga ceebsaday waa laga tagay laakiin Hirshabelle ka jirtaa madaxweyne Ali Gudlaabe Xuseen asigoo midaas ka dabaaqayo ayay maanta oo gaaray go'aan ah in uu madaxweynaha fariin u faro asigoo uga faray shir gudoonkii maanta oo ku qabtay wasiiradiisa iyo asiga oo wada fadhiyo inuu dawladda dhexe u gudbiyo waxay maalin horaato ku hadashay inayna ahayn wax jiro madaxweyne Ali ayaa cadeeyay in madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Ali Gudlaabe Xuseen iyo wax garadka ay ka soo jeedaan ay ku shireen magaalada Xadale taasna lagu cadeeyay cid kasto oo isbaar dhigato in odayaasha iyo maxkamadda cadaaladda mase maxkamadda militariga oo shuute madaxda ka yahay kulligood ay meeshaas joogeen go'aan lagu gaaray cid kasta in la soo qabto madaxweyne Ali Gudlaabe Xuseen ayaa maanta wuxuu cadeeyay waxyaalaha uu Xasan Sheekh sheegayo inay yihiin wax aan jirin waxyaalaha Xasan Sheekh uu ka sheegayo dadka uu ka soo jeedo in ay yihiin wax aan jirin waxyaalaha uu Xasan Sheekh uu macnaha ka sheegayo dadka uu ka soo jeedo in uu ku magac dilaayay oo ku sharaf dilaayay Ali oo jawaabtaas ka celiyay ayaa sheegay in wax la yiraahdo Shabeellada mase Hirshabelle ay isbaaro u oolin aan ka ahayn laba isbaaro midna taal Balcad midna taalo meesha la leeyahay Warshiq ay u taalo Ali معناه وحو عدي
in ay shuqul iyo shaaqal ay ku laheen dadka meesha dhigto inay yihiin dad ciidan ah oo labisan oo garaada leh oo mushaar qaato oo garaamahooda qaato lasteeso ayaga ayaa dhigto marka wuxuu asiga mas'uul ka yahay hadduu yahay xasan sheekh waaye asiga iyo odawaa ay mas'uul ka yihiin ma aha in ay qoorta u geliyaan hirshabeelle beri uu ka yahay hirshabeellena waxaan rajaynaynaa in ay hadda shaqo iyo horumar wanaagsan ay u bilaabato ilaahay waxaan uga baryaynaa cali inuu ilaahay la garab galo anagana diyaara u nahay inaan ka kaalmayno laakiin cali ha iska dhaafo aamusnaanta cali waxaa laga rabaa dadkaasoo madaxweyne u yahay dadkoo madaxweynaha u yahay dhibaatadooda iyo baahidooda waa inuu ka warqabaa aamusnaan badan wax keeni mayso ninka madaxda ku ah mase madaxweynaha ku ah adiga oo ka sareeyo hadduu kugu qaldoomo waxaa loo baahan yahay saaxiib ha igu qaldoomin qaladkaada iga joojina tiraahdeed laakiin ma aha inaad shib iska tiraahdeed hadda ka horna waxaan nidhi hadalkaas oo xasan sheekh meesha ka sheegay jawaab uu mudnaay laakiin uma jawaabin maadaama jawaabta ay kaa soo daahday waad ku mahadsan tahay inaad warka soo gudbisid ummadda soomaaliyeed waxaan usoo gudbinaa madaxweyne cali guudlaabe xuseen oo la hadlaayo ummaddiisa una sheegayo waxyaalihii dhacay iyo foolxumadii ka timid mase hadalkii qadafka ahaa ee ka soo yeeray xasan sheekh maxamuud balna la dhegeysta sidaad ogtihiinba beryahan waxaa aada loo hadal hayay inay ka jiraan deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle isbaarooyin iyo jidgooyo ummadda lagu dhibayo yaa dhigtay yaase dhibka ku haayo ummadda safarka amba dadka ku nool dowlad goboleedka hirshabeelle in la isweydiiyo wax u baahan waayo runta arrintaas wax badan aan hoos uga hadalnay waxaad ogeedeen in bayaan laga soo saaray degmada cadale madaxweynaha dalka uu joogay duubabka dhaqanka saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo dhammaan dadka deegaanka dadka waxgaradkooda ugu muhiimsana inay joogeen wax badan aan kala hadalnay dhibaatooyinkan ka jiro deegaanadan sida isbaarooyinkan kusoo noqnoqday iyo dagaalada sokeeyo ka dhaco deegaanada dhammaan waa kala hadalnay ummadda bayaanna waa laga soo saaray waxaan rabaa marka inaan si gooni uga hadlo arrinta isbaarada la dhigto deegaanada hirshabeelle yay u taallaa yaase dhigtaa isweydiin mudan waxaan rabaa maanta inaan caddeeyo dhibka lagu haayo ummadda safarka iyo bulshaweynta hirshabeelle waxa ku haayo waa ciidamada milatariga qayb ka mid a waxay wataan dareeskii dowladda waxay xiran yihiin darajadii dowladda siisay waxay wataan gaadiidkii dagaalka ee dowladdu ay siisay garaamay qaataan mushaaray qaataan ummaddana jidka ay u taagan yihiin oo safarkii ay dhibayaan ciidamadii magacoodii ay ku dheelayaan dowladnimadii ay ku dheelayaan statekiina waa suurad xumeeyeen oo isbaaraa taallo hirshabeellea la leeyahay waxaan rabaa inaan u caddeeyo ummadda ku nool hirshabeelle qofna uma taallo shacaba qabiilna uma taallo maamulka hirshabeelle heer gobol iyo heer degmana meelay taallo ma jirto 12 degmo ee xurahe hadda la joogo degmo ay isbaara taallo ma jirto ee maamul ama heer gobol ama heer degmo ay u taallo dowlad goboleedka hirshabeellena wasaaradda maaliyadda ayaa 2 kastam waxay u taallaa 2 meelood tubta xeebta marto ceelcad ay u taallaa tubta laamigaana balcad ay taallaa wasaaradda maaliyadda ayaana canshuur qaado waana mid dastuuri oo xaq loo leeyahay inuu stateku inuu qaado oo xaq uu leeyahay waxaan rabaa marka milatarigan madaxdoodii waa kala hadalnay dhibaatada ay iyo jagboonteeda ay dhigayaan iyo jidgooyada ay dhigayaan madaxda ciidamada qalabka sida waa kala hadalnay waxaan dhahnay dhibkaanay ku haayaan ummadee wax laga qabto wax laga qabtana ilaa haddeed ma jiraan oo dhibaatada weli way jirtaa waxaan rabaa marka inaan caddeeyo ummadda hirshabeelle
ciday isbaara u taallo oo bulsho weynta ka mida haba yaraatee ma jirto. waxay u taallaa isbaaradu booliisku uma taallo, nabad sugidda uma taallo, shacabna uma taalo, militariga qaar ka mid ahay u taallaa. wasaaradda gaashaandhigay hoos tagaan. madaxda qarankana waxaa laga rabaa nabarka in la salsalaaxo kuma daawooye, in la dilaaciyo ku daawoobaahe. isbaarada ciday u taallo foolka fartaa laga saaro, hebel iyo hebelay u taal in la yidhaahdo sharciga la horgeeyo. intaasaan rabaa maanta inaan u caddeeyo ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Hirshabeelle. runtii waana uga mahad celinayaa ummadda Hirshabeelle ku nool siday ula direen khawaarijta, siday dalkan culays ka haystay ay gacan uga geysteen, naf iyo maal ay isugu dareen. waa uga mahad celinayaa. haddana wixii dhiman in la dhammaystiraa la rabaahe, inay wejiga labaad ee dagaalka ay naf iyo maal isugu geeyaan sida cadowga looga qaadi lahay deegaanadeynaan rabaa inaan ugu baaqo. waxaa kaloon rabaa inaan iidana ugu baaqo. waad ogtihiin waxaana soo gaarayo maaragtay alaarmiyo badan oo webiga fatahaadiisana deegaanada webiga ku xeeran in loo diyaar garoobo. biyahaas xoogga leh soo socdo, ilaahay ummadda ka badbaadiyey in loo diyaar garoobaa la rabaa. webiga labadiisa dhinac dadka ku nool ha foojignaadaano. maamulada degmooyinka ee ku xeeran webiga sida Balcad, Jowhar, Mahaday, Jalalaq, Buulo Burto ilaa Beledweyne iyo deegaanada kale oo ka xageeya dhammaan ha loo diyaar garoobo fatahaadaas sidii wax looga qaba lahay. annaguna istaydahan habeenii maalin waa u taagnaa doonaa insha Allah haddii la raalli ka noqdo. gacan aan ka geysaynaa wax alla waxaan awoodnaa ka geysaynaa insha Allah haddii la raalli ka noqdo. waxaan rabaa arrinta isbaarada ummadda Hirshabeelle sidii shabaabka oo kale ha ula dirirto. ninkii isbaaro dhigtay wuxuu la mid yahay cadowga shabaab uu la mid yahay, halala diriro. dowladda dhexna waxaan rajaynaynaa inay wax ka qaban doonto. ciidamada militariga qaarka ka mid ah isbaarada dhigtay, magacii militarigana ku dheelay, magacii dowladnimadana ku dheelay, Hirshabeellana suurad xumeeyey, ummadda ku safraysana ku dhibaataynayo. waa militariga qaar ka mid ah in wax laga qabtaan rajaynaynaa haddii la raalli ka noqdo. aad iyo aad u mahadsantihiin.